Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fariinteeda maanta waxay ku socotaa dhalinyarada iskuulaadka iyo jaamacadaha dhigata maadaama youtube-keena ay ku xiran yihiin boqolkiiba percentage-ka dad dhalinyaro ah. Sidaas awgeedna aan jeclaystay in aan la wadaago wixii khibrad iyo waayo aragnimo ah ee ku aadanaa heerkeygii waxbarasho haddii ay ahaan lahayd xilligii iskuulka iyo sidoo kale haddeertaan oo aan jaamacad dhigto. Adigan sidoo kale haddii aad tahay qof arday iskuul ama jaamacad dhigta, videogan waxaan kula wadaagi doonaa dhowr qodob oo muhiim ah isla markaana quseysa qofka dhalinyarada ah ee ku jira heerarka kala duwan ee waxbarashada. Inta aanan mowduuceena bilaaban, magacaygu waa Cabdirasaaq Cariif. Waxaan kaa codsanaa inaad subscribe ii saarto si aad horey noola joogtana videogeena like dhahdo. Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Kusoo dhawaada kanaal youtube-keena. Qodobkeeda ugu horeeya waxa uu noqonayaa kala hidda aroortii. In aad xilli hore kacdo subaxdii. Sirta dadka guuleysta waa kala hidda aroortii. Buugga caanka ah ee magaciisu yahay The 5 AM Club. Buuggan waxaa qoray nin Canadian ah oo magaciisa la yiraahdo Robin Sharma. Haddaba qorayga buuggan waxa uu leeyahay qofka in uu 5 subaxnimo toosaa waa shay uunan awoodin qof waliba. Yacni qof walba ma awoodi karo 5 subaxnimo inuu kaco. Inaad subaxii xilli hore kacdo waxaa ku jiro barako. U fiirso, markaad subaxii xilli hore kacdo, quweysato, salaadii subax tukato, maalintaada oo idil waxaad dareemaysaa firfircooni iyo fudeed. Yacni qof walba uu jecel yahay maalintiisa inuu firfircooni, nashaad, hore u socod, waxqabad inuu dareemsoomaan. Sidaas awgeed ku dadaal oo isbar in aad subaxii xilli hore kacdo. Xadiiskii rasuulkana wuxuu ahaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee uu ugu duceeyey ummadiisa: Allahumma baarik liummatii fii bukuriha. Allow ummadeeda kala hada u barakay. 2 saac ama 3 saac ee ku jirta subaxii inta aadan shaqada ama waxbarashada aadin waxay fursad ku siinaysaa in aad si xeel dheer u fikirto. Xitaa u fiirso, subaxii markaad soo kacdo maskaxdaada waa fresh, wax walba si fudud aad ku fahmaysaa. Yacni wax kugu adkaayo oo maalintii dhan 2 saac maalintii kugu qaadan lahaa 8 saac 5 saac ayaa waxaa laga yaabaa 2 saac ama 1 saac oo subaxii hore ah in aad ku xaliso oo aad ku fuliso. Mid yaanan ilaawin akhrinta quraanka. Yacni caado waa inaad ka dhigataa. Waa isla fahan sooma. Yacni akhrinta quraanka subaxii maadaama dad muslimaan nahay, akhrinta quraanka aad iyo aad ay muhiim u tahay. Haddaba saaxiibayaal, markaana qodobkeeni labaad oo ah salaada. Salaada waa waxa ugu muhiimsan ee la rabo inaad ku dadaasho. 5 waqti ee salaadaha ku dadaal in aad jamiicadka ku xaadirto. Sidoo kale ha fududaysanin sunnooyinka salaadaha faralka ah kadib. Yacni sunnooyinka waxay kabayaan salaadaha. Ogoona salaada waa waxa ugu horeeya ee qofka muslimka ah laga xisaabin doona maalinka qiyaama. Sumcad, sharaf, hami iyo dhammaan wax walba oo aad leedahay yaa rabtaa inuu ku xaqiijiyo waa Allah. Sidaasi darteed xiriirka adiga iyo Allah idin dhexeeya waa in uu ahaadaa mid wanaagsan. Waa isla soconaa Soomaan. Videogan ilaa dhamaadkiisa inaad daawan doonto arjina insha Allah, sababtoo ah qodobada muhiimka ah way dambeeyaan. Haddaba saaxiibayaal, markaana waxaan u gudbaynaa qodobkeena 3 oo ah diyaargarowga. Diyaargarowga waxa waaye ka hor inta aadan xaadirin galaaska ama fasalka, isku day in aad akhrido qaybaha muhiimka ah ee casharka la dhigi doono. Xitaa fahmin haddaad rabto, tan waxay ka caawinaysaa marka uu macalinka casharka sharxayo inaad si fudud uga horfahamto ardayda kuwa galaaska ah. Dhegeysiga iyo diirad saaridda. Marka casharka la sharxayo, iska ilaali wax kasta oo kaa mashquulin kara sida taleefanka, sheekaysiga. Isku day inaad si buuxda u dhegeysato macalinka oo aad macalinka tilaabo walba uu qaadayo aad la socoto. Qor pointiska ama meelaha muhiimka ah ee ku saabsan casharka. Laakiin lama rabo in aad isku daydo wax walba oo macalinka oo sheegayo ama afkiisa ka soo baxayo in aad qorto. Waxaa xooga saari kartaa meelaha aad u aragto in ay muhiim yihiin. Haddii aad wax fahmi weydo, ha ka xishoonin in aad su'aal weydiiso macalinka.
weydiinta su'aalaha waxay kaa caawinaysaa in aad si fiican u fahamto casharka. Sidoo kale midaan sir waaye, macallimiinta waxay jecel yihiin ardayda su'aalaha weydiiya. Xitaa marka uu macalinka imtixaanaadka saxayo, wuu kaa dhex garana ama wuu kaa dhex fahmayaa ardayda. Sababtoo ah magacaaga wuu bartay, waxaad noqotay arday uu macalinka ka dhex bartay ardayda kale. Sameey jadwal nidaamsan, lama rabo in ay wax walba noqdaan hayacdo. Qor jadwal aad ku qorsheynayso xilliga wax akhriska, xilliga nasashada, xilliga is-horumarinta nafta. Waqtigaaga waa inuu noqdaa mid nidaamsan oo aan ahayn hayacdo. Sidoo kale waa inuu jiraa guruub ardayda ah oo mararka qaar inaad isu timaadaan si loo kala faa'iidaysto. Ma hadlaayo in laysku yimaado kadibna sheeko iyo qosol waqtiga ku dhammaado ayadoon waxba la kala faa'iidin. Ogahay dhalinyaro badan baa jirta oo sidaas ah, xitaa aniga aan soo maray. Waa inaad ogaataan ujeedada aad isu timaadeen oo ahayd in aad wax kala faa'iidaysataan. Qodobka afaraad oo ah saaxiibka wanaagsan. Alla saaxiibka wanaagsan muxuu ahamiyad leeyahay? Marka aad rabto in aad badbaado, dariiq badbaadada alle ayaa ahayn sax, laakiin alle subxaanahu watacaala waa uu inoo tilmaamay. La saaxiib qof alle ka cabsi ku weyn yahay, la joogiisa ilaahay subxaanahu watacaala buu ku xasuusinayaa, wanaag buu kula jecel yahay. Saaxiibka wanaagsan marka aad la joogto waxaad yeelanaysaa dadnimo, inaad horumar hiigsato. Intaas oo idil ayaad helaysaa. Dhammaan waxyaabahan waa waxyaabo dhammaan qof walba uu rabo in uu gaaro. Waxaa la dhahay qofka haddii la rabo in la ogaado shakhsiyadiisa, waxaa la fiiriyaa dadka uu saaxiibka leeyahay, cidda uu waqtiga la qaato. Sidaas awgeed guulaha shakhsiga ah waxaa door muhiim ah ku leh saaxiibka wanaagsan. Xadiiskii rasuulkana wuxuu ahaa almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil. Dooro saaxiib kuugu dhiirigeliya wanaaga, kaa caawiya horumarka, ugu horseeda guul iyo sharaf. Saaxiibayaal, waxaan soo gaarnay gabagabadii mawduuceena iyo qodobkeena ugu dambeeyay oo ahaa hurdada. Hurdada markaan leeyahay kama wado 24 saac jiif oo iska hurud. Waxaan ula jeedaa in aad habeenkii xilli hore jiifsato. Sideedaba hurdada habeenkii iyo hurdada maalintii waxaa nafaqo badan hurdada habeenkii. Sida caadiga ahna qofka dhalinyarada ah ugu yaraan waa in uu hurdaa 8 saacadood oo habeenkii ah. Shaqada waxa ay ku fiican tahay maalinkii, habeenkiina nasashada ayuu alle subxaanahu watacaala ugu talay. Baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in habeenkii oo la shaqeeya uu qofka ugu dhibaato badan yahay maalinkii oo la shaqeeya. Fiirso, dadka habeenkii shaqeeya maxaa mushaarkooda laba jibbaar u yahay? Sababtoo ah waxaa la og yahay inuu qofkan uu cimrigiisa cunayo. Waa inaad og tahay qiimaha iyo faa'iidada ku jirta in habeenkii xilli hore la seexda. haddii aad videogan ka heshay fadlan like saar. waa anigoo ah Cabdirasaaq Cariif. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.